maxay tahay taariikhda uu qoray Muuse Biixi Cabdi oo talada Somaliland ka sii digaya 7 sanadoodna majaraha u hayay digaalka ay ku suntan yihiin saddexdii madaxweyne ee isaga ka horeeyay ayaa ahaa mid qoriisu dhiiba madaxweyne kastaabana waxa uu taariikhda Somaliland ku qoray magacii loo bixin lahaa astaamihii lagu xasuusan lahaa iyo halkii uu soo gaarsiiyay nidaamka dawladnimada hana qaaday ee 33 sanadood ee ugu dambeysay kobcay haddaba maxay noqonaysaa taariikhda uu qorayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ay shacabka reer Somaliland u cimaamadeen inuu noqdo madaxweynaha 5 sanadood ee soo socota warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa 4 madaxweyne oo dhiganaha Somaliland baaldahaba ka galay iyo taariikhda uu qori doono madaxweynaha haatan la doortay madaxweyne Maxamed Ibrahim Cigaal ayaa waxa uu ku suntan yahay aabihii dawladnimada iyadoo uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee ay xukuumaddiisu hana qaado hirgeliyayna nidaamka hubka dhigista iyo ciidamada ay Somaliland haatan ku naaloonayso ee sugaya nabadgelyada iyo xasiloonida dawladnimadu ay ku taagan tahay madaxweyne Cigaal ayaa cagaha u taagay dastuurka iyo Somaliland shuruucda ay ku kala soconayso intooda badan waxaana uu dhiganaha Somaliland ka galay aabihii dawladnimada madaxweyne kastaaba marka uu xilka hayo waxa uu yeelanayaa mucaarad iyo dadka soo horjeeda hase yeeshee waxqabadkiisa iyo taariikhdiisa ayaa noqonaysa balse waxqabadkiisa iyo halka uu soo gaarsiiyay horumarka ayaa noqonaya mid ku jira dhiganaha Somaliland iyadoo laga soo qaadan doono inta wanaagsan madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo ku horeeyay nidaamka sirdoonka iyo xasiloonida sida salka loogu dhigo ayaa ku xigay oo madaxtinimada Somaliland la wareegay waxaana uu noqday aabihii dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta hirgeliyay Somaliland Daahir Yaale ayaa ku guuleystay madaxa aan Somaliland weligeed inay yimaadaan xilligaasina Somaliland waxa ay yeelatay mid ka mid ah sirdoonnada Afrika ugu wanaagsan iyadoo si weyn ay u ammaaneen wadamada reer galbeedku sirdoonkii iyo xuraankii ay Somaliland lahayd dimuqraadiyaddii ay ku tallaabsatay iyo sidii uu uga tanaasulay markii doorashooyinka Somaliland lagaga guuleystay 2010 sadarada taariikhdana waxa uu ku geliyaa aabihii dimuqraadiyadda iyo xasiloonida Somaliland horseeday madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa si qoriisu dhiiba kula wareegay talada Somaliland 2010 waxaana uu noqonayaa aabihii waxqabadka dhammaanbana mashaariicda ay xukuumadda haatan madaxweyne Biixi uu majaraha u hayay waday ayaa ahaa mashaariicdii ay ka tagtay xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu dhabada u xaaray wadooyin dhaadheer kuwaasi oo ay u bareeri waayeen dhigiisii ka horeeyay waxaana koow ka ahayd wadada Siilaanyo Rawle isku xidha Burco iyo Ceeri Gaabo oo ahayd in ka badan 360 kiiloomitir wadada Berbera corridor oo isku xidha wadanka Itoobiya iyo marsada caalamiga ah ee Berbera ayaa qayb ka ahayd mashaariicda waaweyn ee uu baalka dahabka ku galay Allah u naxariistee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana uu sidaas ku noqonayaa aabihii waxqabadka Somaliland madaxweyne Biixi oo haatan talada ka sii degaya ayaa 2017 la wareegay nidaamka Somaliland inkastoo uu la kulmay waqtigiisii duufaano siyaasadeed iyo dabaylo ruuxay geeska waxa uu noqonayaa aabihii diblomaasiyadda oo siyaasadda arrimaha dibadda weligeed meel aanay gaadhin ayay gaadhay 3 sanadood ee ugu dambeysay oo uu talada hayay Muuse Biixi Cabdi waana madaxweynaha kaliya ee 4 madaxweyne Soomaaliya gaarsiiyay inay xiriirka u jarto wadamada qaar oo Somaliland cilaaqaad iyo xiriir wanaagsan la yeeshay madaxweyne Biixi ayaa tallaabooyinkiisa diblomaasiyadeed uu qaadaya iska soo daba dhacayeen inkastoo ay 2 sanadood ee ugu dambeysay gaareen heerkii ugu sarreysay Somaliland ay indhaha caalamku ku soo jeesteen iyadoo wadan waliba uu danaynayo haatan inuu la samaysto cilaaqaad sidoo kalena bagcadda istaraatiijiga ah ee ay ku taalo ka helo fariisin military iyo maalgashi dhinaca ganacsiga inkastoo ay 4 madaxweyneba lahaayeen mucaarad markii ay xilka hayeen kuwaasi oo sheegay inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ee Somaliland soo mara hase yeeshee waxa ay qoreen taariikh ay baaldahaba kaga gelayaan dhiganaha iyo sooyaalka Somaliland aabihii dawladnimada aabihii dimuqraadiyadda aabihii waxqabadka iyo aabihii diblomaasiyadda ayay qoreen 4 madaxweyne ee ka horeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo noqonaya madaxweynaha 5 sanadood ee soo socota haddaba maxay noqonaysaa taariikhda uu qorayo